barasabkii hore gobolka Maroodijeex Maxamed Maxamuud Jeeniyare oo maanta warbaahinta qaar kamid ah kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu ka baxay xisbiga kulmiye oo uu ka tirsanaa isagoo ku sababeeyay ka bixitaankiisaasi inaanay dani ugu jirin Somaliland inuu guuleysto xisbiga kulmiye waxaanu sheegay inuu ku biiray waqti xaadirkan xisbiga mucaaradka wadani anigu aad wada garanaysaan Maxamed Maxamuud Cali Xaaji Jeeniyare barasabkii hore gobolka Maroodijeex markii ka horeysay ahaa barasabka gobolka Sool xogayada hoose ka soo noqday meeyar ka soo noqday hawlgelin biliis ka soo noqday Sool muddo badan aan ahaa xisbiga kulmiye waxaan arkay inuu madani ugu jirin maanta kulmiye maadaama aan ahaa muddo badan mas'uuliyadan hayay oo shacabkayga reer Soomaaliland aan muddo badan u adeegayay iyana ay la shaqeynayeen inay ay rooratay maanta meesha dantooda ku jirto aan ka mid noqdo waxaan uga diga rogtay xisbiga wadani kulmiye waa kala dhaqaaqnay taageerayaashaydii saaxiibadayda badnaa ee reer Soomaaliland labadii gobol oo inta badan ka soo shaqeeyay Maroodijeex iyo Sool waxaan ugu baaqayaa wadani baynu codkeena siinaynaa waxaan rabnaa horumar waxaan rabnaa nabadgelyo waxaan rabnaa inuu kala badbaadno waa aragtaan meesha ku socdaan nacasnimadeena ku dhicin reer cadeeye waa aragtaan aniga qaasim baa wada fadhina in badan baa cadeeye fidme laga wadi jiray codka cadeeye waa midaysan yahay wadani baa u horseed noqday nabadgelyadeeda ilaahay waxaan ka baryayaa in doorashadu nabadgelyada nagu dhacdo waxaan mar labaad ku celinayaa anigu miyirkayga maankayga qaba odaga weyn oo dal iyo dibadba laga garanayaa inaan xisbiga wadani ku biiray kulmiye waa kala dhaqaaqnay way isu ducaynaynaa madaxweynaha hore aan soo wada shaqeynay waa nin weyn aad baan u salaamay Axmed Siiraayo Mukhtar Ismaaciil Ali TV Universal Hargeysa.